qaar kamid ah odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ku baaqay in la joojiyo dagaalada iyo iskormaayada ka soo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose sida faahinta warkaan magaalada Kismaayo noogu soo dirayo Qadar Maxamuud Xareed oo Somali Channel halka uga soo warama kulan ay maanta magaalada Kismaayo ku yeesheen qaar kamid ah odayaasha madaxda dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose ee dega magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kulankaasi ku cambaareeyeen khasaarihii ka dhashay dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka lambar 50 waxaana dhammaan odayaashii iyo waxgaradkii kulankaasi ka hadlay ay sheegeen in xilligan aan loo baahnayn dhiig daata iyagoo wax laga xumaada ku tilmaamay dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalada oo ay sheegeen in dhibaato badan ay ka soo gaadhay dad rayid ah oo ku nool deegaanada lagu dagaalamayo meeshan waxa maanta isku yimid beesha Biyamaal anigu afkeeda ku hadlaya magaceedana la yiraahdo waa Saara Cabdi Sheekh haddana aan joogan ku simanahay maamulka Jubba ama gobolka Jubbooyinka gobolada Jubbooyinka aniga oo ku siman waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada ka taagan Shabeellaha Hoose oo uga imaanaysa dadyaalo kala gedisan ama dawladda xaggeeda leh ama qabiil xaggiisa leh waxay dhigtaan maqlaysaa aragtida anaguna ay arkaysaa in cadaalad darro weyn ay ka jirto Shabeellaha Hoose dawladii Soomaaliya u magacaabneedna ayna sidii la rabay ayna waxba uga qabanin waxaan ogahay anigu waxaan joogay inuu madaxweynaha laba caw bariyay meesha la yiraahdo marka uu bariyay ayadoo laga sugayay inuu maamul u dhiso lugaha isku taago oo dawladda taabacsan ayagoo dadka dad deegaanka ka jecel ama dawlad ka jecel aan la arkaynin madaxweynaha ka sugaayeen inuu maamul u dhiso waxa suuragali weyday inuu muxuu ahaa maamul u dhiso madaxweynaha maamul u dhiso waa suuragali weyday wixii hadda ku xogsadeen waxay noqotay in dagaal loo soo qaado Shabeellaha Hoose dagaal lagu soo qaado ay hadda ka dhacay dawladad ee meesha lagu ogyahay ee haddana la leeyahay malasiibeelad ma waa ciidan dawladad ee meesha lagu ogyahay nimanka meesha ku soo duulay hadafkooda waa naqaano waa dhul balaarsi waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan airportka number 50 dad baa la dhulka dadka dhulka laha u tashanay airportka number 50 dekada marka dad baa la dhulka dadkii dhulka laha u tashanay waxaan leenahay waa inay ka waantoobaan waxyaabaha ay ka wadaan waxa kale oo la yaab la dawlad jirto aan ka warqabin ciidamadeeda iyo habkay u socdaan meesha ku duulaan aan ka warqabin taasna yaabay leedahay 1902 ee taariikhda Biyamaal dagaalku uu ku galay Shabeellaha Hoose jilay marka dagaalku maalintu ka dhacay 1902 2013 maanta soo oo maanta tahay inaan ku dagaalano hadda adiga aad sheegato taariikhdaasna dagaalku oo ahaa isa saar marka adiga meel maxaa roob la jumcaale iyo aadan laba afliga inta wax laba daba haasa saaran guuta shanaad bay ahayd weerarkii hore guuta lixaad baa lagu soo daray zuuga waxa laga soo waday bildoog habeen hore waqti uu soo dhaqaaqaan ogaay maxaan sheegnaa marka maxaan ka wada hadlaynaa madaxda xukuumadda waan la hadalnaa ma waxaan la hadalnaa alxabna qolo mooryaana yaa la hadlaya Biyamaal maanta uu ka dacwoonaya Allah ciduu ka dacwoonaya Allah waxa kor jira hoos jiray macawar rooblo waxaan ku leenahay shaarka waa noo wada jira midka ugu jira tuutaasa kugu jira hadda ceer u dhaartay ana saak Biyamaal baan u dhaaranay wixii hore ka noqosho magaca dawladeedna lagu soo arariyay ee hadda la leeyahay kama warqabno taasu waxaan rabnaa dadka saaki u soo kacay marka u soo kacay inay taa saxaan qaabka saxaan dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa bilihii ugu dambeeyay ku soo noqnoqday deegaano hoostaga magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayadoo dawladda Soomaaliya aysan weli xal ka gaarin xalinta dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday gobolka Shabeellaha Hoose Qadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo.